السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كسر وقليل ديزاين سامر والبكلاسات علمي كمبيوتر كي برامج الملتميديها عشر كم حكم سبسين سير لو نشخذين لوغ ديزاين لوغ حتى أدو جيدان أي نشخذين دونا إن شاء الله دور ربنا لكم ناخذ كسر وقليل ديزاين سمر كلا haddii aad ku cusub tahay channelkeena subscribe garee gambalaalkana furo markuu horeyso waxaan rabnaa inaan sameyno size cabirka aan qaadan doono file new dooro kadib sidaan markuu kugu soo bandhigo qaybtan haddii meesha waxaad rabtaa kaliya kartaa laakiin pixel ah isticmaalina laakiin resolution cabirka waxaan ku 720 inaad ka dhigtid midka kale tan 700 resolutionka RGB inuu ku ahaado meesha background in white inuu ku ahaado kadibna okay color ka rabtaa kaliya kartaa markaa sameysid waxaan sameyn rabnaa loogadan sidan oo kale environment sida markuu kugu soo baxo waxaan sameysanaynaa loogadan qaybtii hore ayaan soo daragareynaa anna looga ida camal inaan sameyno ama magacaan ka bedelo ama wax kale aan ku sameyno muhiimada waxaan rabnaa control ida iska yaray kadibna rulerka mastaradahan soo qabso cabirada ka qaado geesaha mid walba saas marka u sameysid qayb walba geesaha xitaa soo sameey kadibna waxaad tirsanaysaa 3 dhibcood 1 2 3 intana sidoo kale 1 2 kan saddexaad waa kana intana sidoo kale 1 2 3 sidoo kale meeshan 1 2 3 dhaxan keenin hadana soo qabso meeshan tirooyinka ku qoran 1 ilaa 3 ma inta way kan kale dhaxan soo qabo intana cabirka qaado 1 3 sida marka u sameysid shape ayaa soo qabsanaysa shape inta laga doortaa right click leh kadibna Pixel tool shift la qabo kadibna cabir isla ay ku imaana aspect ratio control T leh aspect ratio dooro kadibna calaamada wadifka ka weynay adiga ku xiran tahay kadibna calaamada boortiga control T leh calaamada waxaan rabaa kan shapeska rulerska sameysay inay soo baxdo colorka waad ka bedeli kartaa double click meeshani color rabtid dooro hadhow waxaad rabtaa kaliya kartaa kadibna text type tool dooro meeshan click ku sii kadibna control A farta bedel farta waxaan rabnaa colorka inaan ka bedelno cadaan aan ka dhigno kadibna okay waxaan ku qoreynaa magaca isleenahay uu ku soo baxaa ama wixii lagu dhaho sameey ee ku qoreysaa sida marka uu qortay select garay farta meeshan black ay tahay fur narrow dooro ama regular dooro cabir waxa ku imaana cabir isla eke control qabo control A dheh cabirkan yaray 10 xitaa ka yaray 10.5 waa 10 cabirka sida marka u geysid control qabto calaamad sidaas marka isku bedesho waa inaad saas u daraagareysaa kadibna cabirka waxa yaray hadaa rabto sidaan ku dhaafi kartaa sax saaro okay kan dooro calaamadan control J dheh colorka ka bedel colorkan dooro control T dheh aspect ratio dooro weynay sida marka uu enter dheh qaybtan kormarsi waxay yidana control T dheh calaamadan dooro waxay soo yaray sidaas marka u sameysid waxaan rabnaa hadana colorka inay cadaan inaan ka dhigno u baahanahay si uu soo baxo sidaan dooro double click si dooro kadibna okay sax saara kadibna meeshan waxaan rabnaa inaan ka bedelno
bluega waxyaabaas wax walba inaan ka dhigo. Right click ayaa leedahay rasterize, kadibna qayb walba saarta u jari kartaa. Calaamadan dooro, kadibna inta ay ka bilaabanayso oo calaamada control x dheh, kadibna control v, kadibna dooro double click dheh ama right click dheh. Pending options gradient aan dooranayna color oo isku dhex jira oo isku qasan. Dooro meeshan gradientiga colorka is leedahay, meeshan dooro colorka oo ku soo baxaya. hadda colorka aan ku soo baxay sidaan u doorto qoraxdii iyo waxyaabahaasi. hadda rabto door kartaa meeshan cadaan kale, meeshan ka bedelaysaa colorka rabta ka dhigi kartaa, isbedelaysaa. okay aa leedahay, kadibna okay qaybta ugu dambeysana okay. meeshan aad tagaysaa qaybta kale right click hadana ama double click ayaa leedahay, kadibna pending option, kadibna gradient ama color overlay. colorka meesha dooro, colorka waa door kartaa, guduud waa door kartaa. hadda rabtid meeshan ayaad furi kartaa, colorka rabtid ayaad ka soo bandhigaysaa. hadda waxa jeedaa wareegii guud ahaan waan sameeyay. waxayna dhiman qaybtan iyo wareeg waxyaabahaasi. okay loogadii qaybta hoose noo taalo xiriis kor soo aadi. okay qaybtan shift waxaan rabnaa calaamadan wareegga saan camal ah inaan soo bandhigno. meeshan custom shape dooro, shapeska ku dooran, kadibna meeshan fur, kadibna calaamadan waa tana, kadibna escape dheh, shift la qabo, cabays la eg ayuu kugu soo bandhigaa. kadibna qaybta koragay wuxuu u soo bandhigi waayay hoosay jirtaa macnaha fahan. haddii lacala sidaan ay kugu dhacdo qaybta kore la marsiiyay shaybiskaada, kadibna meeshan double click dheh, colorka ku soo baxay dooro, kadibna sax saar, kadibna control dheh, xiriis hoos u jiid ilaa hadda wax cabirka dhaxda ma ku aadamo. haduu ku aaday, kadibna shape meesha hadda fur. haddana shape waxaa rabnaa oo magaca iskuulkii waxyaabahaas lagu soo koobayo, ama waxaa ku dhig inaad ku qoratid shapeska. qaybtaasi ayaan soo dooranaynaa. haddii shapeska aan isticmaalayna photoshop ayuu wataa, kadibna soo daraagelay, control qabo, kadibna qaybta hoose xajida calaamadii dhaxda haddaan ku toosiyay, control t dheh, calaamadii ku toosan tahay. kadibna waxaan dooranaynaa text, magaca laga soo gaabiyey, xaraf xaraf u soo gaabsanaynaa. kadibna a d m a magacana ka soo gaabiyey. kadibna farta wax yariis meeshan ka bedel adoo size waxdan ku daray black dheh, kadibna sax saaro. waxaan oo dhiman qaybtan inaa calan iyo waxyaabahaas inaan ku soo muujino. qaybtan tag, kadibna new layer ama new composition ka arabno kan waaye. kadibna qaybtan hoos ayaan geenaynaa, kadibna meeshan shape-ka ayaan ka abuureynaa. shape-ka marka sidan aa abuurtid waa ku soo daraagereynay. meeshan fur, double click dheh, colorkan waxaan baahnaa calanka inaan ka dhigno. dooro, kadibna calaamadan dooro, control t dheh, si selecting ay kugu sameyso saaribteeda u jeedi kartaa. dhinaca rabtid u badi, hadaa rabtid hoos, kadibna hoos saas marka u geysid oo cabirkii isla ekaadan, control qabso. hadda cabir wuu fadhiyaa. kaliya waxaa noo dhiman xidigta. right click dheh, hadana shapeska custom shape, xidigta ayaan dooranaynaa. meeshan shapeska laga helaa, kadibna new layer dooro, kadibna ku jii shift la qabo, kadibna meeshan fur, calanka xidigtiisa waa kana, kadibna t dheh, calaamadaas yarista inay sidaas meesha ugu aadaa loo baahan yahay, ama waa yarin kartaa. control t dheh, sax saaro, move tool isticmaal, control ka qabo ama move ama selecting ku samey.
sidaas marka u sameysay calankiis sidaas oo ku sameysay. What is difference loogadan iyo loogadan isku mid waaye, kaliya waxay ku kala duwan yihiin magacaasi. Okay, loogadii hore sida uu qaadi kartaa hoos ka raadi qaatana kadibna iska delete garay. Okay, loogadan waxaan rabtaa background inaad ku furtid meeshan check qaad kadibna waxaan rabnaa inaan soo yareeyno crop ayaan isticmaalaynaa. inta rabtid inay soo muuqanin ayaa dooranaysaa sidaan soo yareey crop inaan sameynayna taleefanada uu leeyahay. hadin waxa sidaan marka u sameysid crop kaani wax badan uu ku qabanaa. sax saara ama enter dheh. sidee u save gareyn kartaa file dooro kadibna save dheh. desktop-ka ku save gareyso magaca bixi xyz logo 1 2 3 photoshop ahaan way. waxaadna photoshop wax inaan ka bedel karo oo naqana hadhoodii colorkan waxa customer-ka ma qofka wuxuu sameynaysaa loogada magaciisa bedel ku dhaha kadibna file leh mar labaad ku noqo. waxaan rabnaa mid oo qofka customer-ka uu diraysid kan adiga unique ku tahay, macna qofkan uu ku imaana wax iga bedel ku dhigi karaa. okay, save as ayaan leenahay mar kale kadibna meeshan formatka bsd ga waxaan doonaynaa png kadibna magaca uu qoran yahay kadibna save ayaan leenahay. save markuu kugu soo bandhigay wuxuu sameynaa wuxuu ku leeyahay box oo kugu soo bandhigay hal layer inaa ka dhiga u baahan yahay compressedka kan kugu soo bandhigay kadibna okay leh layerkii ama loogadii waa kana sidaan ugu soo bandhigay. intaas ayaan kusoo gabagabeynayna. haddii aad ku cusubtahay channelkeena fadlan subscribe like share si asxaab badan ay uga faa'iideystaan adigana aad ka mid noqotid mar walba daawadaha ku leeyahay daawada fiidiyoyada aan soo gudbino.